aniga oo dhowraya madax bannaanida iyo maamuuska ay iga mudan tahay yihiin bahda cadaaladda waxaan leeyahay dadaalkiina waa hal bacaad lagu lisay haddii aan garsoorka horumar samayn ummadana haaka odhan haddii dayarto aanay cadaalad helin mas-uulka iyo miskiinkuna ay si sinaan cadaaladda horteeda u sinaan cadaaladda horteeda waxa igu waajib ah inaan qaato tallaabooyin aan ku saxayo kuna hormarinayo cadaaladda garsoorka kana daalimayo tilmaanta iyo toosinta inta aan ka xaqiijinayo himiladii bulshadu igu dooran aan dadweynaha Soomaaliland u sheegaya inuu garsoorka Soomaaliland yahay garsoor isku kalsoon taasoo aan uga jeedo inaanu ku niyad jabin inta xumaha ka shaqeysa ama waxa xun faafisa inaanu ku niyad jabin cadaaladuna ay tahay mid naga go'an inaanu marno anagoo qawaaniinta waddanka u yaal iyo shariicada islaamka dabaqayna waxaa leeyahay garsoorka Soomaaliland kuma niyad jabayo hadal jaraa'id laskaga qoro kuma niyad jabayo laba qof oo inta loo garqaaday kii wax dulmay koox xiri karayo miidiyaha inta soo fadhiista wuxuu doono iska samayn karayo uma jawaabayno jawaabteedu waa go'aanka iyo sharciga waa in ku dhaqanno annagu marka aanu difaacayno qofka wax dilay iskagama murano oo ma nidhaahno muu dilini daliil baan raacnaa oo waxaan wax ka sheegnaa xukuumadii maxkamaduhu hadday khaldameen iyo markhaatiyadii haddayna waxba cadayn iyo haddaan qofkii ahayn iyo hadduu kama galay oo aanu deero tooganayo qofka tooganayn oo aanu qisaastii aanu bareer ahayn ilaa isagoo garanuug tooganayo qof ku dhici karaysa rafcaanul difaaciisi waa dhaartay wuxuu maxkamadda u sugay inaanu rabin inuu markii gaari istaagay ninka kan oo xoogaa ka dhaxeeyay dareenaha xaaskiisa oo dhowr goor uu xiriir la yeeshay kadibna uu erga ka galay ergadii jawaabteedu sugayay dabadeedna isagoo martuu ari ka soo noqday uu hayay dabadeedna uu la kulmo gaarigaas agtiisa oo lagu qabtay break markuu eegana arkay gaarigii uu ka digay marxuumka qorayna wansanayo xoogaa yana ka dhaxeeyay intaanu kaaga horreyn uga horreyn waxaa qiimada qaabka bandambiyo ku dhacay inuu ahaa mid bareera oo camdana oo ku talagala oo uu habeenimada ku soo toosay oo suuxinimada qorigiisa ku qaatay oo waddada weliba ku galay oo ku sugayey markuu soo maray baabuurkiisa soo jaarkiisa dhaafada meesha maba yaallada waa kaslaad waxaa iman kara damin qorigiisa kaslaad ma maha hadduu u yar ku dhufan lahaa xooda ama dhagax uu ku furi lahaa ama dhirbaaxo ama feega ku dhufan lahaa oo damin naftu ka dhici lahayd baa la yidhaha kaslaadka سادات الدكتورية ما لها مرن شكل لبي درجة حكومة ويسكون راعين ما قالوا شباب تروح تواصلنا أيضا كل عضو الله وخاصة بالنبوة والدنيا ما قالوا قرصور هرتو الحقاد عم نصدق ضدك مش على يدي
saddexday dadka ugu jecel yihiin ayaanu anagu xukunaa waa naftii naftaada haddaad dil gasho dil baanu kugu xukunaa waa maalkii oo haddii maalkaagii bal kaa xukumayna haddaa xaq u yeelowda waa sharaftii iyo karaamadaadii oo aanu kaa xidhayno haddaad dembi gasho waa saddexday dadka ugu jecel yihiin haddaba garata kulliba ceebteeda iyo dhibteeda waa leenahay laakiin anigu ilaahay umbaa naga la ajisaaya marin karaa haddaanu qaldanana ilaahay baa nagala xisaabtamaya wixii xaqana cidna u mari mayno inta ka haybadaysan howlaha garsoorka waxaa fulinaya maxkamadaha iyo xeer ilaalinta waxay mid kasta ku ekaanaysaa awoodaheeda sharcigu u xadeeyey waxaa la eegayaa sida ay u wada socdaan qodobada dastuurka iyo xeerarka kale waxaana hay-adaha garsoorka waajib ku ah inay dhaqangeliyaan shareecada islaamka iyo xeerarka kale ee aan ka hor imanayn una adeegaya danta guud ee cadaaladda waaxda qaranka ee garsoorku iyadoo u madax bannaan hawsheeda garsooridda waxay dabaqaysaa dastuurka shareecada islaamka iyo sharciyada kale ee dalka iyada oo ka madax bannaan waxyaha kale ee qaranka sida uu dhigayo qodobka 97 farqadiisa labaad ee dastuurka waaxda garsoorku waxay ka garsooraysaa go-aanna ka gaaraysaa khilaafyada ka dhex dhasha laba qof amaba in ka badan xubin amaba xubno dadweynaha ah iyo dowladda oo dhinaca khilaafyada hay-adaha dowladda dhexdooda sida ku cad qodobka 97 ee dastuurka waxaana sidan sheegaya amaba ay ku cad yihiin qodobada 2 iyo 3 ee xeerka nidaamka garsoorka ee xeer lambar 24 habka qaadista dacwaduhu waxay soo mareen marxalado ay ka mid yihiin geed hoostii iyo garay qaadaan guurti iyo oday dhaqameed hanaanka sharciyada ee waqtigan ayaa noqday mid ka awood badan hanaankii hore ee axdi dhaqameedka oo muddo dheer ahaa garsoorka bulshada Soomaaliland waxaana dhammaanba khilaafka iyo muranka soo dhexgala bulshada lagu xaliyaa nidaamka garsoorka ee maxkamadaha nidaamka garsoor ee dalka ka jira wuxuu ku salaysan yahay diinta islaamka iyo dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland asal ahaanna wuxuu ka soo jeedaa wadanka Masar ayaa inoo tilmaamay oo xeerkaas inoo soo qaaday inaga waynu Soomaaliland markii Soomaaliya isku ahayd xeerarkii wadankeena ka jiray dawladii 69 ka caanka ahayd wadanka qabsatay wixii ka horeeyay xeerarkii ka jiray uma soo qaadan wixii ka dambeeyay ma jeeda wixii ka horeeyay waa soo qaadan macnaheedu waxa ahaa gooliyada dejintii beriyaas wuxuu ahaa goolada ugu dowladda tiraya hadda inaga ku ilaalinaya ku jiray waana xeer laga fikiray oo nolosheeni inuu ku haboon yahay iyo garsoorkeeni ku haboon yahay loo qaatay ma indian penal code maqla shaqo kuma lihin indian isku xeerbanyihiin waxaan maqalnaa wax xeerbaaniya maxaa inoo keenay isku xeerbaaniya ma lihin gooliyada dejintii beriyaas oo masiisu tashriici ummadda ahaa xeerarkii inoo aqoonsaday ee dhaqangeliyey ama xilligii ingiriiska procedureka jiray
habka garaha loo qaado ayaa berigaa aqoonsaday inaguna ku yar soo qaado nolosheennana way ku dabaqmayaan xeerka madani waa kadaalika asalkiisa horena masar buu kasoo jeeda oo waxa weeye waddan islaama masar waxaa ku taal jaamacadda ugu weynada islaamka oo asala kii ay culimadooda baas iyo xajiid ayaa markay soomaaliya hayna laga soo tixraaday oo meelayaa iskaga midka noqonaynay laga soo qaatay inana dastuurkeena inoo soo qaaday waana ku habooyin nolosheena waana ku yahay garsoorku waa dhidibada aasaaska u ah dowladnimada garsoor la-aantuna waxay keentaa cadaalad la-aan iyo dowlad la-aan cadaaladdu waa gobdhaxaadka nolosha waa asaaska iyo jiritaanka dowladnimada waxayna astaan u tahay maamul wanaagga waxayna abuurtaa kalsoonida iyo isku xidhnaanta bulshada iyo maamulka qofka xilka hayana waxay dhexsiisaa toosnaan iyo horumar miskiinka iyo dayartana waxay siisay xaqooda haddaba si cadaalad loo helo darteed ayaa dastuurka u qeexay madax banaanida garsoorka waxaanu u maamusay bahda garsoorka iyo cadaaladda waaxda garsoorka ee somalilan waxaa ka howlgala garsoorayaal iyo xeer ilaaliyayaal waxaana soo magacaaba guddida cadaaladda guddida cadaaladdu waa hoggaanka waaxda garsoorka waxaanay sifo sharciya uga yimaadaan waaxyaha fulinta sharci dejinta garsoorka iyo xubno ka yimaada bulshada rayidka ah guddida cadaaladdu waxay awood u leedahay magacaabista xilka qaadista dallacsiinta garsoorayaasha iyo ku-xigeenada xeer ilaaliyayaasha ee maxkamadaha darajada koowaad ee degmada gobolka iyo racfaanka sida ku cad qodobka 108 ee dastuurka jamhuuriyadda somalilan magacaabista guddoomiyaha maxkamadda sare iyo xeer ilaaliyaha guud ee qaranka iyo garsoorayaasha maxkamadda sare waxaa awood u leh magacaabistooda madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan sida ku cad qodobka 105 ee dastuurka jamhuuriyadda somalilan marka madaxweynuhu uu la tashado guddida cadaaladda waxaan isbedel ku samaynay dhammaan intii awoodi ii saamaxaysay inaan wax ka qabto sida maxkamadda sare xeer ilaalinta guddiga cadaaladda waxaan isbedel lagu sameeyey maxkamadaha rafcaanka gobolada iyo degmooyinka anigoo og inaan cabashadu dhammaanayn oo haddii loo ka dhaqana kii garta laga helaa uu cabanayo sidaa darteed aniga oo dhowraya madax banaanida iyo maamuuska ay iga mudan tahay yihiin bahda cadaaladda waxaan leeyahay dadaalkiina waa hal bacaad lagu dhisay haddii aan garsoorka horumar samayn ummadana haabka o dhan haddii dayarto aanay cadaalad helin mas-uulka iyo miskiinkuna si sinaan cadaaladda horteeda u sinaan cadaaladda horteeda waxaa igu waajib ah inaan qaato tallaabooyin aan ku saxayo kuna hormarinayo cadaaladda garsoorka kana daalimayo tilmaanta iyo toosinta inta aan ka xaqiijinayo himiladii bulshadu igu doonay xeer ilaalintu waxay dhowrtaa shuruucda dalka xuquuqda madaniga ah ee agoonta iyo dadka tamarta daran ee aan lahayn awood ay iskaga difaacaan maxkamadda horteeda xeer ilaalintu waxay oogaysaa dacwadaha ciqaabta ah isaga oo qaranka matalaya wuxuu u galay dariiqii masaajidka uu salaada ku tegayay maxuumka isagoo yaqaanay masaajidka ku tukado iyo dariiqa la maro wuxuu ku ridaa marxabood isagoo kusii talagalay oo ku qaylaya maalimada maqaaxyada agteeda ah dariiquu mari jiray ma jirto wax la yidhaahdo
واستفاء هو كما قلنا وفي بريرة سواء بريرة شيء ما هي مرة كله شكله ويستهين وهو ممكن شيء بريرة إنه يدلو مرة بس هو بريرة خير أفور سبب فوقاته أفتح بوده wuxuu ka qayb galaa dacwadaha danta caamka ah waxaanu awood u leeyahay inuu racfaan ka qaato hadduu ku qanci waayo xeer ilaalintu waxay amartaa awoodna ay u leedahay barista dacwadaha ciqaabta iyadoo adeegsanaysa laamaha bariseed ee ciidamada booliiska oo ah halka ay ka soo bilaabmaan dacwaduhu gareenku waa qayb ka mid ah sharci yaqaanada ka howlgala waxyaha maxkamadaha ee dalka sida ku caad qodobka 17aad ee xeerka nidaamka garsoorka farqadiisa labaad dacwadaha ciqaabta ah ee xukunkoodu noqon karo dil xabsi daa'in amaba xarig ka badan 10 sano waxa waajib ah in eedeysanuhu uu qabsado qareen sharci yaqaan umur sii gelin wadada hal markhaati oo cadeeyay wadada sii galay ma jiro hal markhaati wax aad markhaati oo anaga gabadh baa la keenay markuu inanku meesha marayay aragtay xabadu dhaceen kadib hal markhaati oo quli lama keenin oo cadaynaya inuu meesha u sii galay oo jibooyo u sii galay si keesaaba isku soo baxay dhowr casho waan hadalkan soo gaabinayay maxkamadda dhowr casho ayaa booliisku doonayay hooyadii waa la xidho guriga la xidho laba habeenayay maalin bay caynaba ku xidhnay wuu baqayay baqdin badan baa jirtay oo booliisku bay marna isxisaaseeyeen sidaa darteed uu isku soo baxday naxdintaa isku naxeen baa xabadu kaga fakatay jidgooyo muu geyn maqaaxina uguma siqayn markhaati caddeeyey ma jiro maqaaxidan uu sheegaya mobilka kaga tegey mobilkiisa kaga tegey maqaaxidaan meesha buu dhowey horta sharcigaa siinaya qof kasta oo la soo eedeeyo in la difaaco xagga kuwa ciqaabta ah dilka bareerka ah galay ee falagarasaha lagu hayo ayaa xeerku banaynaya in la difaaco annagu marka aanu difaacayno qofka wax dilay iskagama murano oo ma nidhaahno muu dilini daliil baan raacnaa oo waxaanu wax ka sheegnaa xukunadii maxkamaduhu hadday khaldameen iyo markhaatiyadii haddayna waxba caddayn iyo haddaanu qofkii ahayn iyo hadduu kama galay oo aanu deero tooganayo qofka tooganayn oo aanu qisaastii aanu bareer ahayn ilaa isagoo garanuug tooganayo qof ku dhici karaysa arrimahaasaan horta adeegsanaaye ma nidhaahno qofku isagoo dembi galay iskagama bareerno ma dhacda dacwadaha ciqaabta ah ee dhageysigoodu hor yaalla maxkamadda sare waxaa ka doodi kara oo keliya qareen sharci yaqaan qareen إلى عبد علي محمود وفرنسا كنت مركز كلها يصير مو الله كذا عين ويسبع صوتوني ويسبع صوت على السبب هو ما يا بوليس كانوا ما يسكت صوتهم مفهوم سكين ساعة ورمخرة سكين ساعة سلا صحابته كيف تتوقعون عليه أنت عايز تصوب هم حوتي وبمعنى تاسو أتفرج إلهي ببني النبي موسى ومده دول تري والنبي ومده ضيو ضلع والدعويان إلهي ببني حق وهي ووح شرعية ووح الدين توقش هاي ووح الإيروب اللي إلهي ببني قفك أن أفتهن لماذا كل يبان كرين أما أقولوا يبان كرين النبي وحولن شري وكيل أفتهن وقوها الله صوص ميس حير كابناني لجلت سباد عكرتا كوا السوق باتشرا مر بعد عيسى عارف دنبيله وكيل قان كراي garanku wuxuu kafaalo qaadayaa isla markaasina uu qareen u qabanayaa qofka aan lahayn awood dhaqaale oo uu ku qabsado qareen ka difaaca dacwad ciqaaba nidaamka maxkamadaha ee dalku waxa ay ka kooban yihiin maxkamadaha darajada koobaad ee degmada gobolka iyo racfaanka iyo maxkamadaha sare ee maxkamadda dastuuriga ah maxkamadda sare ee cadaaladda iyo maxkamadda sare marka laakiin laga hadlayo maxkamad in legal system
shaqada practical loo qabanayo waxay noqonaysaa xaakimkii kursiga fadhiyey iyo labadii dhinac iyo heerkii xaakimku samaynayay labadii daraf iyo xaakimkii intaasaa maxkamad noqonaysa xaakimkii muxuu matalayaa labadaa kafadood marka dhinacyada ku tilmaamay isna waa irbadii xaakimku markaa waxaa la rabaa irbaddu ikhtiyaar bay leedahay irbaddu halkaa ku taagan ikhtiyaar male labadaa kafadood markii aanay nambigiisaa saarnayn culay saarnayn way simanto bartakii taaganta marka lee xaakimku dhexa ahaado horta waalkii aanu kugu yimaado kursigaagu yaanu dhinaca loo ciisraani kow marka labaad nin walba wuxuu halkaa dhigto ee dhitaysta ee uu keensado ee u nafa doodii hadday tahay hadday wax markhaati u keentay iyo hadday caddayno tahayba miisaanka u saar adigu maxaad markaa xukumaysaa marka irbaddu ciidaysaa waa markii wax la xukumayay miisaan wixii halkaa saartay u tanjeerso markaa dhinacii miisaanka wey adoo xaakima haddii imka kiilo iyo nus kiilo miisaan la wada saaro miyuu shakiinaga siraa in miisaanku ama irbaddu u tanjeersami doonto miisaankuna u badan doono dhinaca kiiloogu saaran yahay shakiinagama jiro waxaa la rabaa xaakimow garsoorow in irbadaasaa tahay ha iska ciiri زمانيا لغو حمد وقبري قال او دفت كنت انا تحجري وحتى تقول هاي وحتى نتقول مأومي maxkamadda degmadu waxay ku taallaa degmo kasta oo dalkan jamhuuriyadda Somaliland waxaanay fadhigeeda ku qabsan kartaa meel kasta oo ka mid ah xuduudda degmada maxkamadda degmadu waxay awood u leedahay inay ka garnaqdo dacwadaha xeerka qoyska iyo shareecada islaamka dacwadaha madaniga ah ee xukunkoodu uu gaari karo ilaa 3 milyan iyo dacwadaha ciqaabta ee xukunkoodu uu noqon karo ilaa 3 sano maxkamadda Somaliland maxkamadda degmada Hargeysa xukunka maxkamadda dambiilayaasha kala Farxaan Aadan Cali ina Shukri Aadan daadis 35 jir Shacaib Cismaan Maxamed ina Raxmo Cismaan daadis 36 jir iyo Ibraahim Cali Aadan ina Faadimo Daahir oo daadis 30 jir oo ku gafay qodobka sharaad iyo toddobaad ee xeer lambar 4 ee 1989 soo baxay waxa lagu xukumay midkiiba 9 bilood oo xariga iyo 1 milyan oo shilinka Soomaaliland oo ganaaxa haday eedaysanayaashu bixin waayeen ganaaxaasi ha loogu bedelo xarig u dhigma xarigu waxa uu bilaamayaa maalinta la soo xiray taariikhda 2014 bishii 9 keegi xukunkani waxa la soo saaray maanta taariikhda 2014 bishii 9 22 keegi maxkamadda gobolku waxay ku taallaa magaalo madax kasta oo gobol awoodeeda maxkamadeedna waxay gaarsiisan tahay xuduudda gobolka maxkamadda gobolku waxa ay fadhigeeda ku qabsan kartaa meel kasta oo ka mid ah xuduudda gobolka maxkamadda gobolku waxay awood u leedahay dhageysiga dacwadaha ka baxsan awoodaha maxkamadda degmada ee ka dhaca gobolka sida sharcigu tilmaamayo maxkamadda gobolku waxay awood u leedahay go'aanka gaarista cabashooyinka laga keeno doorashooyinka golayaasha deegaanka iyo ansixinta xubnaha golayaasha deegaanka maxkamadda gobolku waxay awood u leedahay go'aanka ka gaari kartaa dacwadaha madaniga ah ee dawladdu ay dhinaca ka tahay gudoomiyaha maxkamadda gobolku wuxuu si gooni ah awood ugu leeyahay go'aan ka gaari kara dacwadaha ciqaabta ah ee lagu soo oogo caruurta yaryar maxkamadda gobolku waxay awood u leedahay dacwadaha wixii 3 milyan ka badan xagga madaniga ilaa wixii ka sareeya inta doonto ha noqoto deeq bilyan noqoto haday hanti la isku haysto noqoto ayay awoodeedu tahay ومحكمة الدقمة أي أود له وحين 3 مليون iyo wixii ka hooseeya iyo dacwadaha dhaxalka ah dacwadaha qoysaska waxyaalahaas oo dhan waxa awood u leh maxkamadda degmada maxkamadda gobolka waxay xaq u leedahay 3 milyan wixii ka sareeya iyo 3 sano wixii ka sareeya xaligoodu
ciqaabahan ayuu leedahay xagga madaniga 3 milyan wixii ka sareeya ayuu leedahay xagga ciqaabta 3 sano iyo wixii ka badan ilaa dil waxa qaada maxkamadda gobolka oo awood u leh hadduu ku qalci waayo go'aanka iyo xukunka uu ku qalci waayo inuu abiil qaato gartu waa 4 geed maxkamadda gobolka haday xukunto abiil buu ka qaadanaya qofku maxkamaddii rafcaan ku tagaya maxkamaddii rafcaanku haday ka xukunto maxkamaddii sare tagaya maxkamadda sare haday ka xukto xaq wuxuu yeelanayaa dib u eegis markii 4 darajo uu soo dhamaysto waxa dib lagu soo celiyaa galka maxkamadda gobolka si ay u fuliso oo loo abaal mariyo qofkii xaqaa yeeshay in xuquuqdiisa loo fuliyo garsoore horta wuxuu qaadaa anagu 3 dadku u jecel yihiin 3 dadku ugu jecel yihiin ayaanu anagu xukunaa waa naftaada haddaa dil gasho dil baanu kugu xukunaa waa maalkii oo haddii maalkaagii bal kaa xukumayna haddaa xaqu yeelowda waa sharaftii iyo karaamadaadii oo aan kaa xidhayno haddaa dembi gasho waa 3 dadku ugu jecel yihiin haddaba garta kulliba ceebteeda iyo dhibteeda waa maran laakiin anigu ilaahay baa naga laajisay marin kara haddaanu qaldanana ilaahay baa nagala xisaabtamaya iyo guddida cadaaladda marka anigu qofna u joojinayna procedure-kaasaan raacina ninkii godob noo qaba isaga cirkodob ku og haddaba garatay ma baan tagay halkan kamana baqalno ilaahay baan ka baqalnaa wixii xaqana cidna u mari mayno maxkamadda gobolku waxay awood u leedahay dacwadaha xuquuqda shaqaalaha maxkamadda gobolku waxa ay yeelanaysaa laamaha soo socda laanta dacwadaha madaniga ah laanta dacwadaha ciqaabta laanta dacwadaha cashuuraha iyo maaliyadda laanta dacwadaha ciqaabta ee caruurta dacwadaha ciqaabtu waxay u qaybsan yihiin 2 laamood laanta caadiga ah iyo laanta tashiga maxkamadda racfaanku waxay ku taallaa magaalo madax kasta oo gobol waxaana awoodeedu ay gaarsiisan tahay xuduudda gobolka waxay awood u leedahay inay ka ganaqdo dacwadaha racfaankooda looga soo qaato xukunadii maxkamadaha degmada iyo gobolka sidoo kale waxa ay ka jawaabtaa cabashooyinka ka yimaada maxkamadaha gobolka iyo degmada maxkamad walba rafcaan waxay dhageysataa dacwadaha maxkamadaha gobolkaas ay ka soo garnaqaan ee la soo rafcaan qaato ay rafcaankooda ka garnaqdaan waxa kale oo ay qabataa cabashooyinka maxkamadaha darajooyinka hoose ee gobolka iyo degmooyinka maxkamadaas xukunto cabasho kastoo u timaadana way wajibaan maxkamadda dastuuriga ah waxay ka kooban tahay guddoomiyaha maxkamadda sare 4 garsoore oo ka tirsan maxkamadda sare waxaana guddoomiye ka ah guddoomiyaha maxkamadda sare amaba guddoomiyaha guddida cadaaladda maxkamadda dastuuriga waxay fadhigeeda ku gashaa fadhi buuxa waxaanay awood u leedahay fasilaadda ujeedada qodobada dastuurka iyo xeerarka kale ee dalka lagaga dhaqmo marka la isku qabto ujeedadooda inta marka xukunna maxkamadu gaarayso waxay fasil baa ku jira maxkamadaha xeer ay si qadan dabaqeen ama ay si kale taawaan u sameynaa garsoorka waxa kaloo jirta haddii annagu iskama galno fasilka marka cidi ka timaado arrinta balmadmadoogeeda maxkamadda sare ha macayso waxa sida loogu dhaqmaayo markaas fasilku annagu waan u fadhiisanaynaa oo aanu go-aan ka soo saari karno qodobkaas saasaa loogu dhaqmaya xeerka dastuurka khilaafsan ama xeerka mustaaca ka hor imanaya ee dastuurkeenu sheegay isaga haddii ay dadweynuhu ka keenaan cabasho ama golayaasha iyo hay-adaha dowladdu bay yidhahdaan halkaasi nama anfacayo bal halkaa eega maxkamadda sare dowla diyaar baanu nahay waanu helbaa laakiin ma dhacdo inta badan waxay awood u leedahay go-aan ka gaadha dacwadaha maamul iyo xeerdejinta ee aan waafaqsanayn dastuurka ee ay soo hordhigaan cidda danaynaysa maxkamadda dastuuriga waxay u raacaysaa dhegaysiga dacwadaha sida ku xusan xeerarka habka ciqaabta iyo madaniga xukunka maxkamadda waxay maxkamadda sare ay diiday asbaabta rafcaanka rafcaanlaha axmed yuusuf yaasin ee ku taariikhaysan 12 bishii Abriil 2012 iyadoo afeedkii qareenkooda laba waxay ogolaatay jawaab celinta asbaabta rafcaanka rafcaansana gudoomiyaha xisbigooda iyo doolafeedkii qareenkiisa iyo jawaab celinta ku taariikhaysan 9 bishii Shanaad 2012 waxay hayday maxkamadda go-aanka guddiga diiwaangelinta ururada iyo ansixinta axsaabta qaranka kuna taariikhaysan 17 bishii Abriil 2012 afar waxayna ku kordhisay maxkamaddu in warqadda sumadeedu tahay tixraac gaxa udub 2012 ee ku taariikhaysan 3 bishii Tobnaad 2012 waxay maxkamaddu dhisay in warqadaasi ay leedahay ku dhaqan sharci
taasoo uu soo diray guddoomiyaha xisbiga udub mudane daahir yaali kaahin ujeedadeeduna ahayd guddiga soo xulista xubnaha go-aan ee golaha dhexe ee xisbiga udub guddidaas oo tiradoodu tahay 35 xubnood oo guddoominaya guddoomiye ku-xigeenka xisbiga udub axmed yuusuf yaasiin waxay yeelanaysaa ku dhaqanka sharci waxqabadyadii warqadaas ama igmashadaas lagu sareeyey ee kusoo baxay haddii la raacay oo lagu dhaqmay nuxurka iyo ujeeddada warqadaas ku qornaa wax ka beddelka iyo soo jeedinta xeerka xisbiga udub waxaa loo raacayaa sida uu dhigayo qodobka 23aad xubintiisa koowaad iyo xubintiisa labaad ee xeerka guud ee xisbiga udub sidoo kale wax ka beddelka xeerku wuxuu ku ansaxayaa sida uu dhigayo qodobka 23aad xubintiisa saddexaad ee shirweynaha maxkamadda sare ee cadaaladdu waxay ka kooban tahay guddoomiyaha maxkamadda sare 4 garsare oo ka tirsan garsoorayaasha maxkamadda sare 4 xubnood oo laga soo xulay labada gole ee guurtida iyo wakiilada waxaanay maxkamadda sare ee cadaaladdu ay awood u leedahay go-aanna ka gaadha dacwadaha ciqaabta ah ee lagu soo oogo xubnaha 3 gole eedaynta xubnaha 3 gole waxaa maxkamadda horteeda ka oogaya xeer ilaaliyaha guud ee qaranka marka xubinta laga xayuubiyo dhowrsanaanta maxkamadda sare waa xubinta ugu sareysa waaxda garsoorka fadhigeeduna waa magaalo madaxda dalka ee Hargeysa waxaanay fadhigeeda ku qabsan kartaa meel kasta oo dalka ka mid ah waxay ka kooban tahay guddoomiyaha maxkamadda sare iyo tiro garsoorayaala oo aan ka yarayn 4 garsoore maxkamadda sare waxay awood u leedahay go-aanna ka gaadha dacwadaha racfaankooda loo soo qaato xilliga qaadista amaba dhegaysiga dacwadda garsooruhu wuxuu dhegaysanayaa eedda xeer ilaalintu ay soo oogtay ilaa baarista saldhigga booliiska markhaatiyada waxaanu raacayaa sida uu sharcigu ku waajibiyey xilliga dhegaysiga iyo qaadista dacwadda sidoo kale wuxuu dhegaysanayaa istifaaca eedaysanaha iyo dooda qareenkiisa ilaa uu ka gaarayo qaraarka kama dambaysta ah ee ku dhawaaqista xukunka waxaa loogu yimi macnawiya ninbaa ku damaaciyey marxuumkaa ku damaaciyey wuxuu ku damaaciyey inuu xiriir la yeesho saheelbadel galmo barnaamij isagoo la jooga ayuu xaaskiisii u soo diray telefoon oo yidhi aan kugu imaado haddii la rabo yahay bacalada berkada berkadaha magaalada mid ka mid ah oo ay u dhiibtay isaga oo yidhi wali waxaa u sugaysa xaaskayga dabcadina delivery aan leeyahay inaan berkada kula balamaysa halkaas ugu nimaado iyo waxyaabaa noocaas iyo wax la mid oo oo waxyaabo u baahan maxkamaddu inay taabato uu erga ka galay oo burcashaa maxkamad oo dhan ogaatay ama ka warhayso lama tixgelin lamana eedeyn waa duruuf u baahan in haddii la buriyo jiritaankeeda markay maxkamaddu taabato inay u tixgeliso waxaa intaa raacda rafcaanuhu difaaciisii waa dhaartay wuxuu maxkamadda u sugay inaanu rabin inuu markii gaarigu istaagay ninka kan oo xoogaa ka dhexeeyey dareenahaa xaaskiisa oo dhowr goor uu xiriir la yeeshay kadibna uu erga ka galay ergadii jawaabteeduu sugayey dabadeed isagoo maktuulo ari ka soo noqday uu hayey dabadeedna uu la kulmo gaarigaas agtiisa oo lagu qabtay breeka markuu eegana arkay gaarigii uu ka digay marxuumku qorena wansanayo xoogaagana ka dhexeeyeen intaanu kaaga horrayn uga horrayn aragtidiisu wuxuu sheegay inaanu doonaynin inuu wahdilo laakiinse uu doonayey inuu haddii la baruu yahay wax yeela gaarsiiyo marxuumkaa dhintay ma doonaynin wuxuu doonayay inuu wax yeela gaarsiiyo nasiib daro dhaawac uu noqday wuxuuna ku dhintay markii la qaaday boqoshii meesha gudoomiye garsoorayaal in yar baan idin muujina baada dhacdo sida u dhacday iyo sida looga warqabay weliba kowdii bisha afraad bay ahayd abaara 11 barkii barqinimo 2014 abaara 11 barkii barqinimo rabcaaninta ka tegey
tuulada uu deganaa oo la jaamacad qabar wuxuu tagay wadada weyn ee baabuurta ay marto uu ogaa in baabuurkiisii jaadkiisa kusoo beegay saacadda inuu ka soo maray qorigiisina u qaatay aakagaha baabuurkiisi u joogsan بريقنا كم قوان يساعد قريب قطع حبيت أن توصل أيوة شيء ولا بيكسر وكل شيء قريب شيء ما تقدر تقدرين واحد طلبة تلاوي كطلبة قيامها إنه هو يسوي عليهم يعني كلا قاعدة تقول قبل شيء لقيه وحدا هو قريب شغلنا قيامنا ماله واحد يمنا قاعد بالدنيا فولاي إنه واحد برا عندنا أو كتلاجرا أو هبني من كتلاجرا توصل وصحن من القرية فقاته ووضع وليه هو كراي وكسر ما بصامر بعمر سوى جالس وأنا شو مقاتل قوات دعوة الناس كافرين دوان وها مثل بعض الناس أو أي مثل صح قوم شو وها ده المرحوم نقاش عيد وليه فقالوا شنو درجة سدينا هذا دعوة كتير نجي ونتجي مرحوم التليفون فوق دري أبغى أستدي الصباح نما وقولوا أني فوضى قصي صعدة أدو جوجل هي سكتش أنا ما هقول لك شو أبي ساعات إذا ما نافع سأصلا قصة مرة كسرات من الدمشق ما بيجي لنا فكسرات وحيمان كردني قلت كسرات معها هذول يرفضوا فرلا حاضر أما نجح وفتور أما نجح أما فين يقول فرلا أو دليل ما فكرت لا يبغى لا كسرات وهو بس يجوا كذا حاجة بدل بيجي لكن ما كله يهاب عندوني يعني دعوة هذول دعوة نسمي النتيجة نقول ندلو لما قالوا الدنيا فدرت الدنيا ما لها مورا شكي ما قالوا شربت عن فاصلنا أيضا كل عضو الله بتحصل بنو قالت لي ودلو ما تظن معي عارف التربية خصوصا التربية كتير بريئة يكون خصوصا غلطنا أفضل بقصة الدنيا في الحياة حجاب تقول هو فصل آيات القرآن الكريم كأن سورة البقرة وقلت ضبعات يسجد وقلت ضبعات يسلان ففعلوه له إياهي وفكي قريدين بقاس كدي مركي وسيب بريئة حبطك قد مشتبر حونك كليدا هوستيدا كليدا بدي هوستيدا تاسو بويسي حديديدا واوين اي كليدا مرحوم ما قبط ku geeriyooday sababta falkaas taariikhdu markay ahayd kowdii bishii afraad 2014 isla goobtaan ku geeriyooday sababtii xabada kaga dhacday kelida una dhintay dhiigbax dibadda iyo gudahaba ah taas oo keentay dhimashada marxuumka sida ku cad haashida midbaalista ismadeedu tahay rif isbitaalka guud ee gobolka Togdheer 177 2014 ee labadii bishii afraad 2014 kana soo baxday isbitaalka guud ee Burco sida ay wax u dhaceen ay waafaqsan yihiin qodobka 163 xafiiska A iyo B xeerka habka ciqaabta sidaa darteed maxkamadda sare iyadoo cuskanaysa qodobada 232 233 234 122 123 160 xeerka habka ciqaabta iyo qodobka 434 xeerka ciqaabta guud oo waafaqsan aayadaha quraanka kariimka ah ee suuratu baqara 178 179 waxay soo saartay xukunkan waxaa la diiday asbaabta rafcaanka rafcaanlaha ee ku taariikhaysan 7 bishii 9 2014 iyo kordhinta asbaabta rafcaan ee ku taariikhaysan 7 bishii 12 2014 laba waxaa loo ogolaaday jawaab celinta asbaabta rafcaanka ee xafiiska xeeraarinta guud ee qaranka ee ku taariikhaysan 9 bishii 9 2014 waxaa la ayiday xukunka maxkamadda rafcaanka gobolka Togdheer ee sumadiisu tahay 84 2014 ee soo baxay 28 bishii 8 2014 waxaana lagu xukumay dambiile Cabdalle Xasan Maxamed
in aamina xasan soddon jir ah dib toogasha kadib markii uu si buuxda ay ugu caddaatay inuu si badheedha u dilay marxuum maxamed muuse cashuur waxaa u bannaan ehelada marxuumka koow inay dalbadaan qisaas waafaqsan xukunka maxkamadda iyo qur-aanka kariimka laba inay dhaafsadaan diyo xukunkaas maxkamadda ee qisaasta saddex inay cafiyaan xukunka waxaa lagu dhawaaqay maanta ay taariikhdu tahay 12 bishii 12 2014 maxkamadduna waa xidhanta maxkamadda sare waxay hubisaa in qodobada sharci sidooda loo dabaqay amaba loo fuliyey amaba loo fasiray iyo inay qabato howl kasta oo u xil saaray dastuurka amaba sharciyada kale ee ka soo baxa waaxda xeerdejinta awoodaha maxkamadda sare waxaa ka mid ah inay go-aan ka gaadho cabashooyinka laga keeno doorashooyinka guud ee ku saabsan ansixinta doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenka ansixinta doorashada xubnaha baarlamaanka go-aanka gaadhida khilaafyada ka dhex abuurma qaybaha garsoor ee ku saabsan xagga awoodaha iyo dhegaysiga dacwadaha sida ku cad qodobka 106 ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland wasaaradda cadaaladdu waxay u xil saaran tahay fulinta go'aamada maamul ee ka soo baxa guddiga cadaaladda haddaba sida uu faahfaahinayo qodobka 108 waxay wasaaraddu fulinaysaa go'aamada maamul ee ka soo baxa guddiga cadaaladda waxaana ka mid ah dalacsiinta anshax marinta garsoorayaasha iyo ku-xigeenka xeer ilaaliyaasha ee ka howlgala maxkamadaha hoose ee racfaanka iyo gobolada jira xeer labaad oo si muhiim u ah howlaha garsoorka oo halka qabyo ku ah dastuurkuna xusay sidaas si lamidna looga fadhiyo golaha xeerdejinta ee curiya haddii golaha xeerdejintu hawshaa ka gaabsadana waxaa curin kara layn ministerka wasaaradda golaha xukuumadda oo wasaaraddii cadaaladdu arrintaa u qaabilsan tahay horgeyn kartana kaabinetka wasiirada iyo maaragtay halkaa iyagaa dawlad u gudbin karaa goliyaha xeerdejinta oo xeerkaa baahi baa loo qabaa waa xeerka wada shaqaynta wasaaradda cadaaladda iyo hay-adda garsoorka waa ka qodobka 106 xiriirka hay-adaha garsoorka marka hay-adaha garsoorka la leeyahay waa maxkamadihii iyo xeerlaantii iyo wasaaradda cadaaladda wasaaradda cadaaladdu waxay u xilsaaran tahay fulinta go-aanada maamul ee ka soo baxa guddida cadaaladda halkaa aad u fiirsan wasaaradda cadaaladdu waxay u xilsaaran tahay fulinta go-aanada maamul ee ka soo baxa guddida cadaaladda go-aanada maamul ee guddiga cadaaladdu ay gaadhaan inay baahiyaan laba wada shaqaynta wasaaradda cadaaladda iyo hay-adda garsoorka waxaa qeexaya xeer waxaa qeexaya waa xidhiirkii shaqo ee ka dhaxayna maadaama magacii cadaaladeedna wasaaraddu sirtuulo aan laga maarmin in golaha fulintu yeesho wasaaradda qule dastuurka ku sheegay weeye wasaaradda cadaaladdu ee halkan ku xusan waa waajib mar walba inay jirto wasaaradaha kale siyaasadda dowladda haddii kuma qaar bay ka maalmi karta wata laisku celeeliyo iyadu waa wasaarad mar walba dastuur qeexay oo inay taagnaato ay tahay markay saa muhiimaddaa u leedahay qarankii ugu leedahay waxay muhiimadda si ay hawsheeda u suurto gasho garsoorkii iyo cadaaladii waa laba xog kala banaan aada u kala banaan marka garsoor la yidhaha iyo marka cadaaladda leeyahay waa wax aada u kala banaan cadaaladdu waxay taabanaysaa qofku maalinta uu dhasho xuquuqdu yeeshay ilaa maalintuu dhimanayo xuquuqdii uu yeeshay cid u daryeesha iyo aqoonsigeedii loo aqoonsan waxay tilmaamaysaa inuu xaqii waxbarashada helo xaqii nolosha helo xaqii daryeelka wixii brisi ku qoran dastuurkan ee ah human right human right oo xaqii nolosha xaqii daryeelka kii hoyga kii daawada kii wax walba xaq buu yeelay cidna uu ku yeelanaya marka isagana waajib buu laayo inuu cashuurtii bixiyo
inuu horumarka waddanka ka qayb galo inuu wixii dowladda waddanka daryeel ku samaynaysa iyo fulinayso inuu qaybtiisa ka qaato ayaa isna waajib ku noqonaysa dee qof gacmaha ka laabto iyo cashuurna bixin maayo horumarkiina ka qayb qaadan maayo inuu iskuul hela xaq u yeelan maayo inuu caafimaad cid weydiiya xaq u yeelan maayo laakiin markuu taxpayer noqdo wixii la waday ee ummaddu leedahay qaybtiisa ka qaato ayuu isna xuquuqdaa kala yeelanayaa ma jirayso xuquuq bilaa waajiba waajib kastaana waxa uu yeelanayaa xuquuq qofka saaran xuquuq kastaana waajib waa waxaa isu dheeli tiran waxaan leeyahay qodobka labaad baa le wada shaqaynta wasaaradda cadaaladda iyo hay-adaha garsoorka waxaa qeexaya xeer maadaama wasaaradda cadaaladdu tahay wasaarad muhiima oo dastuurka ku taala cadaaladdu inay tahay mid looga baahan yahay goob kastoo adeeg bulsha yaalo caafimaadkaa looga baahan yahay waxbarashadaa looga baahan yahay oo imika laba arday imtixaan gelaya iyo boos shaqo dowladda ee hay-adda shaqaaluhu naadinayso feer bay u baahan tahay in laga sameeyo waxay u baahan tahay muwaadiniinta in loo soo bandhigo imtixaankaas shaqadaa bannaanaatay ciddii u tartantay qofkii ku guulaystay inaan laga weecinin ama aan la siin midaan istaahilin oon ku guulaysan cadaaladda waxa laga rabaa wasaaradda cadaaladda hadday ay ka timaado waa ciddii kantarooli lahayd ee ogaan lahayd deeqaha waxbarashada la bixinayo fursadaha shaqada waxa allaala wixii lamid xuquuq qofku leeyahay waddankiisa ku leeyahay wasaaradda cadaaladda ugu mas-uula markay cabasha ka timaado inay iyagu halkii maamulkii laga cawday inay weydiiyaan oo ay dabagalaan oo la xisaabtamaan garsoorkii wuxuu noqday laba qof loo garqaadayo dastuurkaa bay ku qoran tahay shaqada garsoorku wuxuu awood gaara u leeyahay okay inuu ka garsooro khilaafka dhex mara ama ka dhex abuurmaan laamaha dowladda oo dhinac ah iyo xubno ka tirsan dadweynaha oo dhinac ah ama dadweynaha dhexdoodaba waxaa ku jira xitaa kamariyadii marka waxaa laga hadlaya dadweynaha iyo dadweynaha dhexdooda shirkadihii ay abuureen iyana shaksiyadda qaanuunada iyo shaba ku jiraan inuu ka taliyo muran kasta oo la xidhiidha waafaqsanaanta dastuurka waa maxkamadii sare haddii uu soo baxo xeerkaasi dastuurka ma waafaqsan yahay mise ma waafaqsana xuquuq buu dulminaya mise ma dulminayo oo muwaadiniinta dacwadii cabasho ka keenaan ciddii arrintaa hubin lahayd ee ay marti uga noqonayeen maxkamadii dastuurka ahaydeen oo ah maxkamadda sare xubnaheedu noqonayaan okay xeerkaasi markaa waa xeer muhiim u ah wada shaqaynta iyo xiriirkii wasaaradda cadaaladda iyo hay-adaha garsoorka hadday heraanta tahay iyo hadday maxkamadii yihiinba waanu maqaynahay iminkana murug baa jira wasaaradda cadaaladda waxay taytankeeda ku qorantaa markaa wasaaradda cadaaladda u qoran waxay qorantaa wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha garsoorka maaha arrimaha garsoorka guddiga cadaaladda loo xisaabay wasaaradda cadaaladduna inay daba socoto xuquuqdii dadku ay lahaayeen principalska ahayd daryeelkeedii iyo ciddii kale ka saarnaayeen iyo horumarinteedii inay ka hadasho daba gasho ayay xaq u leedahay annaga ka garsoor ahaan waxay naga soo gashaa wasaaradda cadaaladdu fulinta go'aamada guddiga cadaaladda oo waxyaabaha mudugga yeelaya annaguna inaan jeclay inaan kor u qaadno laakiin dastuurka ayaana kala saaraya waxay u baahan tahay xeerkaa in la cuniyo oo ciddii wixii saarneed waajibka ku ahayd waxa weeye waaxda xeerdejinteeda waaxda garsoorka maahe in iyo waaxda fulinteeda inay labadaasiba ka kaashadaan oo ay cuniyaan si ay u wanaagsanaato wada shaqayntii wasaaradda cadaaladda iyo hay-adda garsoorka oo ay shaqadu u fududaato wasaaradda cadaaladda ee somalilan waxaa waajib ku ah in ay fuliso go'aamada maamul ee aynu sare ku soo sheegnay haddiiba ay ka soo baxaan guddida cadaaladda waxaana sidaasi adkeeyey qodobka 4 farqadiisa 3 ee xeerka nidaamka garsoorka ثمانية لغو حمل وقبري قالوا دكت كنت انا تحتري وحتى تقول هاي وحتى نتقول